يا كدلي من حيوان ما يدلا حمد يسوي كدلا محو خوسمي محو خوسمي وعباودي لا انجز تويتلا أصلا في وجهي هاي بوليس كم تكتي وطي محو خودين بوليس أسكر كم كي ما توي أريان مركاتنا دي أسكرت وتكتبي وكسر عريان أنت عقبك يقول ما عداوي عريان داوريال wiilkan oo wiil baataysan oo wax cabasho yahay nin ayaa habeen waa wiil yar oo Soomaalida ku nool magaalada Garowe caasimadda Puntland waxa uu ka cabanayaa askari habeen walba garaaca oo dila haddaba muxuu yahay askarigani barnaamijka ayaynu ku dahqaadayna ha yeeshee daawada intaynan barnaamijka u gudagelin haddii channelkan ku cusub tahay subscribe saar asxaabtaada la wadaag kusoo dhawaada barnaamijka waalidkii dhalay Cabdikaafi gaar ahaan hooyadii Sacdiyo hooyadii waxa ay haysataa 12 caruur ah haddana waa xaamilow 9 bilood u go'ay arrinka Cabdikaafi waxa ka soo falceliyay guud ahaan ballaamaha ammaanka ee dawladda Puntland sida gudoomiyaha degmada Garowe gudoomiyaha guddiga amniga ee booliiska wasaaradda haweenka iyo qoyska wasaaradda caafimaadka hay'adda xuquuqul insaanka iyo wasaaradda cadaaladda guud ahaanba way ka falceliyeen baaritaan caafimaad ayaa ku socda bay yiraahdeen Cabdikaafi yare wasaaradda haweenka ayaa la wareegtay kuna haysa xarunta xanaanada ee dadka tacadiga loo geysto muddada hawsha socoto ayaa waxa loo soo arratiri doonaa bay yiraahdeen cunugan yar hooyadiina waxaaba la ogaaday inay tahay hooyo uur leh fariimaha in booliisku waxba aanay ka qaban waxba kama jiraan ay ku tilmaameen runtii xalay boolisku way soo qabteen wiilka dhibta loo geystay haddana gacanta ayuu ku jiraa inta falkan meel u dhacayo baaritaanku u socdo dawladda laamaheeda kala duwan ayaa u xilsaaran go'aanka gaaraysa tacadiga loo geystay wiilkan yar ee Soomaaliyeed Cabdikaafi xaqiiqada iyo in waxa meesha yaala ismale yeyna ka hor dhicin bay yiraahdeen baaritaanka go'aanka dawladda dhammaan intii la soo xiriirtay inta damacsan inay caawiso wiilkan yar waxa ii soo gudbin doonaa bay yiraahdeen cidii aragta tacadigan oo kale fadlan wac bay yiraahdeen wasaaradda xuquuqul insaanka ee dawladda Puntland 316 sidaas ayaynu xuga qaban doonaan haddaba daawada wiilkan yar banala daawo oo muuqaal laga soo duubay isagoo ka sheekeynaya sidoo askarigani habeen walba u garaaci jiray kudilay من حيوان ما يدلا حمد يسوي كدلا محو خوسمي محو خوسمي وعباودي لا انجز تويتلا أصلا في وجهي هاي بوليس كم تكتي وطي محو خودين بوليس أسكر كم كي ما توي أريان مركاتنا دي أسكرت وتكتبي وكسر عريان أنت عقبك يقول ما عداوي عريان داوريال wiilkan oo wiil baataysan oo wax cabasho yahay nin ayaa habeen kasta dila waa aragtaan jirkiisa waxa ku yaala nabar waaweyn siyaa oo jeedaanin booliiska magaalada Garowe ayuu xiriir la sameeyay oo booliiska waxa ka nooga muuqda uu tagay dibna waa la soo cayriyaa maalin habeen kasta ninka dilay wuxuu ku dilay sababtu ku dilay waxa waaye waxba u diidaa dibna markuu waxa u diido uu dilaa nabar waaweyn maxaa kala dhibaato qabta walaal وعبنا باقي ضد مرات هذا مرات يا بس habeen kasta habeen bishii ma si barisi waa intiisan boo idile waasmay hadda waa dhagax baa soo qaataan ka ku caaray saligu waxay ma qabtaan dadka iska midbaa dacwada xagee kala nabarkaaga yaala doodkii afii nuaragtana wadayaal inanka yarka uu dhimatay magaca حتى ويستاجي لا هي ما هي أود وكل استاجو بليس وحنا مدة Soomaaliyeed بدونها رجال ويا كوا Soomaaliyeed كعصنينا إن كان العاويو سو كلنا بوليسك وحنا كعصنينا إن دتك الدباتي سنة الدباتي ده هيسو لجرب قبته ma ku nooshahay gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ma ku daashay shaqooyinka xamaaliga ee warehouse ma tahay qof suuq geyn kara badeecooyinka shirkadda Forever Living Product ma tahay qof sumcad iyo maamuus ku leh jaaliyadda Soomaalida ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka hadday jawaabtaasi tahay haa waxa tahay qofkii ku haboonaa ee hore u gaadh shirkadda Forever Living Product haddaba daawade ka mid noqoshada ganacsigan shirkadda Forever Living Product
kuma xidhna wax shuruuda aan ka ahayn in da'daadu ay ka weyn tahay 20 iyo in aad heli kartid dhaqaale aad u yar oo aad ku bilaabi kartid marka loo eego faa'iidada aad ka heli karto kaliya magacaaga emailkaaga addresskaaga iyo telefoon numberkaaga iyo meesha aad degan tahay ayaa lagaga baahan yahay markaad ka mid noqoto shirkadda Forever Living Product waxaad helaysaa warqaddii kontraktiga ee aad shirkadda la gashay ID number adiga kuu gaara oo aad kaga adeegan kartid adduunka oo dhan hab online iyo off online si aad u doonatid waxa aad doonayso waa qiimo dhimis shirkaddani ayay samaysaa qiimo dhimiska iibka aad samayn doontid oo u dhaxaysa 5% ilaa 5% ilaa ay laga gaarayo 48%. maxay iibisaa haddaba shirkaddan Forever Living Product shirkaddani waxay soo saartaa productyo ama alaabo loo isticmaalo isqurxinta dumarka caafimaadka iyo miisaan dhimista ama miisaan kordhinta waxaana ay ka farsamaysaa geedka loo yaqaano dacarta oo hodan ku ah geeyiga Soomaalida iyo malab wax kiimika ahna ma laha waxaad samayn doontaa ganacsi adiga kuu gaara oo aad maamulatid aadna ka samayn kartid dhaqaale aan xad lahayn waxaad ku biiraysaa bulsho ganacsi oo iswada caawimaysa waxaad heli doontaa tababar iyo aqoon kororsi bilaasha oo free si aad u gaadhid heerka aad doonaysid waxaad u kala gudbi doontaa darajooyin waaweyn oo qadarintooda iyo qiimahoodaba leh haddaba darajooyinkan aad gaari karto oo shirkaddan aad ka gaari karto maxay yihiin sideese u gaari kartaa waxay darajooyinkan ay ka kooban yihiin 13 darajo oo midka kale ay ka sarreyso ta koowaad ayaa inaad noqoto assistant supervisor tan labaad ayaa supervisor ta saddexaad ayaa assistant management ta afraad ayaa manager ta shanaad ayaa senior manager ta lixaad ayaa eagle manager ta toddobaad ayaa soaring manager iyo safir manager diamond safir manager iyo kuwa kale oo badan oo darajada kale ay ka sarreyso kana dhaqaale badan tahay dhammaan darajooyinkaasi waa kuwa aad xaqiijin kartid midba midka ay ka sarreyso aad bay uga dhaqaale badan tahay waxaad kale oo shirkadda ka heli doontaa waxyaabo la yiraahdo incentives oo ay ka mid yihiin Forever Car Plan oo 3 gaari oo dalxiisa iyo 3 gaari oo dalxiis free lagu geynayo sanadkiiba 2 jeer check you magaciisa la yiraahdo German bonus oo lacago waaweyn dadka qaar mutaystaan oo malaayiin dollar gaaraya German bonus waxa la yiraahdaa oo ah in aad shirkadda ku yeelatid share joogta lacagaha trillions dollar ee ay sanad walba faa'iido aad qaybtaada ka qaadan doontid shirkaddu haddii ay sanadkaasi dhaqaale faa'iido oo aad badan ay soo saarto dunida oo dhan waxa aad leedahay faa'iido adiga percentage ku gaara haddaba haddii aad diyaar u tahay inaad ka mid noqotid ganacsigan baaxadda leh ku soo biir bahda Forever Living Product kalena xiriir telefoonada shaashada ku qoran iyo WhatsApp linkiga si aad u hesho macluumaad dheeraad ah waxa halkaasi kuugu diyaara dad khibrad gaar ah u leh iyo la taliyayaal ka caawin doona sidaad ugu biirayso iyo sidaad ganacsigan u suuq geyn doonto ha moogaanin Forever Living Product hadda waxa uu ku eegyahay gobolka Minnesota marka loo furo jaaliyadda Soomaalida ee waddankaas